الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaan salaamayaa dadka Soomaaliyeed ee meel walba naga daawanaya wasaaradda maaliyadda madaxdeedii baa halkan fadhida. waxaan doonayaa inaan ka warramo dadka Soomaaliyeed oo aan si turxaan la'aan uga warramo wasaaradda maaliyadda madaxdeedii reportka soo saaray waxaan doonayaa inaan soo saaray maanta dadka Soomaaliyeed anigu kulli shalay baan ugu horeysay tayada madaxda wasaaradda soo saaray reportkaas ayaa la soo saaray shalay oo ka hadlaya auditkii lagu sameeyay ama baadhidii lagu sameeyay wasaaradda maaliyadda gaar ahaan lacagaha yimaada iyo lacagaha la qaado meelo badanna waa reportku waa taabanaya. marka hore waxaan oranayaa waxa weeye hanti dhowrku waa hay'ad madax bannaanideedana runtii wax la soo dhaweeyay weeyaan in wax lala qabto weeyaan intaa iyo intaasaanu ka soo shaqeynay wasaaradda meelo noocaas oo kale ah waa hay'adaha ugu muhiimsan weeyaan adduunka. dalkeenana wuxuu hana qaadayaa marka runta la isku sheego wuxuu hana qaadayaa marka waa soo dhaweynaynaa hanti dhowrka iyo madax bannaanidiisa iyo shaqada ay qabanayaan hay'adaasi waa soo dhaweynaynaa. laakiin haddana annaguna mas'uuliyad baa na saaran, dadka Soomaaliyeed na saareen, ayagana mas'uuliyad baa saaran. labadayadu in mid waliba mas'uuliyadiisa ka soo baxa weeyaan. waxaa mas'uuliyadda na saaran waxa marka hore marka reportka la qorayo ilaa annaga report la naga qorayahay inaan la falgal oo aan wada sheekaysano weeyaan. ama aniga ha noqoto ama wasiirada kale ha noqoto ama ha noqoto xisaabiyaha la isla falgalo oo la isweydiiyo wax ayaa aad loogu baahan yahay. waxaan isleeyahay anigu taasi sidii loo baahnaa umay dhicin baa aniga iigu muuqata. hay-addani way madax bannaan tahay, technically way madax bannaan tahay, laakiin waa hay-ad dowladda ah mana u malaynayo inay tahay hay-ad siyaasadeed ama siyaasadda ka shaqeysa. waa hay-ad figures ka shaqeysa, numbers bay ka shaqeysa. numberska laga shaqeynayaana ama waa 1 ama waa 2. 1 iyo 2 iyo plus ma noqon karo, waa wax un la isla ogyahay wey. accountka waxa ku jira ama waa inta ama waa inta, labadaba ma noqon karo. marka waxaan halkan u fadhinaa maanta madaxdayda halkan waxa weeye inaan qeexno oo cadayno oo kala dhigno oo kala qallo xisaabta halka lagu soo qoray inaan kala qallaan doonayna. annaga xisaabtayadu meelay ka timaadaa soo maaha. xisaabaha dibadda nooga yimaadaa meelay ka yimaadaan, bangiga adduunka ka yimaadaan, sanduuqa lacagta ka yimaadaan, qolada European Union ka yimaadaan, Sacuudiga ka yimaadaan, cid alla cidii waxna siisaba khayr Allah siiyay ka yimaadaan. meel bay soo maraan la isla yaqaano, meel bay ku dambeeyaan, meel way ku baxaan. marka waxaan halkan ka cadaynayaa waxa weeye annaga World Bank account-kiisii wixii ku jiray ee laga soo wareejiyay iyo Central Bank ayaga wixii ku jiray iyo corresponding bank waxa ku jira anagu leenahay halkan wasaaraddu leedahay, dawladdu leedahay, iyo waxa anagu aanu leenahay waan isticmaalnay inay isku mid yihiin. isku mid weeyaan, tuugna ma xadi karo. figures kan sheegayna anagu ama numberadaan sheegayna waa isku mid weeye. waxaan doonayaa halkan warqad baan qoray aan ka jawaabayo. warqadaasi markaa kulley si baad u heli doontaan haddii alla yidhaahdo. halkan waxaa ku qoran waan ay tusayaa. halkaa waxaa ku qoran laba jadwal baa ku qoran, laba table baa ku qoran. tableka u horeeya aan ka soo qaado EU-da lacagta naga soo gaadhay dadkiini akhriyayo. EU-da waxa naga soo gaadhay buu leeyahay reportku 17 milyan 4,000 iyo 816. wuxuu leeyahay lacagta markaa la isticmaalay waa 13 milyan 266 kun iyo 667. lacag baa jirta buu leeyahay markaa af Soomaaliga ku qoran dhiman baa ku qoran. af Soomaaliga dhiman baa ku qoran. dhiman macnaheeda af Soomaali waa markii baa la laakiin tani waa cadaan way dhiman tahay mees waa la waay
eegada lacagtaasi way dhiman tahay weeye waa la waayey weeyaan arrintan caawa daba socdana waa taa weeye anigu waxaan ku leeyahay horta waxaa dhiman buu yidhi 3,700,000 iyo 830,940 iyaa dhiman buu yidhi now EU-da xagga hoose anigu waa taa taayadii waa taa weeye taayadii waa taa oo lacagtiina soo gashay tii central bank taallay intaanu isticmaalay inta maanta taalla ayay tilmaamaysaa ya lacagta weli wayna soo gashay annaga mid ka badan ayaana soo gashay tuu isagu sheegayo meel laga keenay figurka anu ma garanayo ya annaga mid ka badan baana soo gashay halka uu leeyahay 4,000 iyo intaa anagu waxaan leenahay 56,000 17 milyan iyo 56 milyan ya ayaana soo galay baan leenahay 56,000 ya ayaana soo galay lacagtaan isticmaalay way ka yartahay inta uu leeyahay waad isticmaasheen 13 milyan googo baad isticmaasheen annagu 12 milyan ma googo baan isticmaalay wuxuu leeyahay lacagta waxa dhiman waxa weeyaan 3 milyan iyo 700 annagu waxaan leenahay waxa noo yaala 5 milyan iyo in ka badan ayaa noo yaala rasiidadeediina waan haynaa halkan ay yaalaan baankana yaalaan ama siraad bank bay yaalaan labadaas mid yaalaan waa lacag taalo weeyaan lacag taalo oo maanta hadii la doono inta la soo xawilo qadaadicda halka lagu tirinayo weey ya marka lacagta leeyahay waa la waayay 300 iyo waxa 3 milyan iyo 700 anagu waxaanu haynaa baan leenahay 5 milyan ayaa noo yaala aanu kale lacagta Saudi Arabia asagu wuxuu leeyahay maanta horta waxaan ka hadlaynaa waxa weeye 2018 weey December 31 wixii halka ay noo yaalay baa laga hadlaya maanta lagama hadlayo ya report wuxuu leeyahay 20 milyan baa la soo wareejiyay anagu waxaan leenahay 20 milyan lama soo wareejinay 20 milyan iyo 130 baa la soo wareejiyay hadii anaga lana weydiin lahaa waanu sheegi lahaynaa tirana weydiin lahaa lana tashan lahaa waanu sheegi lahayn lama soo wareejin 20 milyan iyo 130 860 ayaa la soo wareejiyay recordkeeda ayana uu yaala halkana waraaqoodi kuwana central bank aan ka soo qaaday wuxuu leeyahay 6 milyan ayaa la isticmaalay waa runtii weeye 6 milyan waa la isticmaalay waxa kale oo 13 milyan way dhiman tahay 13 milyan baa dhiman buu leeyahay anagu waxaan ku leenahay 14 milyan baa noo yaala ya 13 milyan baa dhiman de ma dhinay haddaadna weydiin lahayd maan leenahay anagu waan ku sheegi lahayn 14 milyan oo kaasha ayaa maalinta yaalay maanta ma 14 milyan baa yaalay December taasina waa Kingdom of Saudi Arabia UNOPS qolada la yiraahdo wuxuu sheegay lacag booliiska loogu talagalay oo kala dhiman uu leeyahay barbaa dhiman 700 iyo waxba dhiman buu leeyahay reportka dad akhriin anagu waxaan leenahay milyan iyo lacagta iyo inka ka timi intaba waa la isticmaalay booliiskana la siiyay waa kan reportka waa kan ya wax alla wax dhiman waa kan annex 1 weeyaan kaasi kana waa annex 2 weeye labada haddaad isku geyso lacagta meesha ku qoran weeyaan 1 milyan 1.2 milyan ka weeyaan ya marka taasna halkaasay ku dhan tahay lacagahan kale halkan uu leeyahay way ka dhiman tahay de meesha laga keenay adjustment la sameeyo waa la sameyn doonaa waan maray hadii loo baahdo laakiin anagu waxaan xaqiijinaynaa waxa weeye wixii iyadu naga soo galay wixii Sacuudiga naga soo galay intiiba waan haynaa meesha ku dambeeyayna waan naqaanaa meesha ku soo waan naqaanaa UNOPS ka waxoogaa yaray booliiska siisan intiiba waa la siiyay waanaga ay tusay bank recordkiisa waanaga central bank waxa kale oo idin sheegay waxa weeye annaga lacagaha aan hayno waa la audit gareeyaa World Bank tiisa waa audit gareystaa EU teeda waa audit gareysataa Sacuudigana waxaan u dirnaa report isagoo aan report ku nooga baahnayn ayaan hadana anagu report u diraa ya waxa lagu isticmaalaya waxaan audit gareeyaa anaga IMF ko og lacag soo S&P program ku jira Soomaaliya deyn afis baan ku jira Soomaaliya ayaga mar walba yiraahda aan lacagteedii la ogaano wax walba nala og ya auditor general ka laftiisuna waa abu ma garanaysaa inaan isaga laftiisu waa audit gareeyay isagoo ka wakiila muxuu ahaa World Bank isagoo ka wakiila ayuu audit gareeyay taasi markaa waa taas lacagtii Sacuudiga waan cadeeyay lacagtii EU-da waan cadeeyay lacagtii UNOPS ka timi waan cadeeyay taasi halkaas horta iyo ku dhantahay arrimaha kale ee report ka hadlay wuxuu ka hadlay
2018 lacagta turkiga gacantaa lagu soo qaaday lacagta turkiga lacag baa turkigana siiyaa khayr laa siiye waa 2 milyan iyo badh bishii 2 milyan iyo badh muddayna siinin intaan joognayba wayna siinayeen budgetka ka bay tahay budgetka in badan oo halkan ka hadlay waan sheegay markaa 18 lacaga badan oo gacanta lagu qaaday baa jiray marka lacagta dekada laga soo qaaday gacanta lagu soo qaaday lacagta layna qolada turkiga siiyaan halkan ay keeni jireen waa loo tagi jiray gaari armar la kaxaysan jiray waxa la keeni jiray central bank qofkii doonaya in lacagtaas tibadiyaan kale de bank uma tayn weydiiyo ya wira lacagtaasi ma timi rasiidkeeda ma haysa halkay ku baxeen aawin baa naga noolina ma garad ida report bank celinaa mar walba aan siinaa muxuu turkiga khayr laasi ya marka lacagta cash baa loo soo qaadayo waxba money laundry waxba la gelin lahayo wax aan loo baahnayn dadkan in dhibaato la geliyo ma aha waxaasoo kalena inay meesha ku qoraato aan waan diidanahay personally ya taasina waa taa weeyaan iyadana waxa kale oo aan sheegaya waxa weeye lacagtii turkiga wixii horta gacanta lagu qaaday oo dhan waa la joojiyay sida dadka Soomaaliyeed ay ogyihiin aan u sheego all the time gacan lacag lagu qaaday oo dambe ma jirto lacag walba waa la diraa waxa lagu diraa systemka lagu diraa maanta soddonka ay siiyeen oo 12 bilooda intaba banka lagu soo diray Siraad Bank oo account Soomaaliya ku yaalo oo Istanbul ayaa lagu soo diraa waxaan marba uga baahano ayaan markaa soo gudbinaa ya marka taasina iyaduna waa taa wax dambe oo la soo diro oo ma garanaysa lagu gacanta lagu soo qaadaa ma jirto wixii gacan lagu qaaday waa la joojiyay cabinetka golaha wasiirada ay shiray qaanuun bay soo saareen waxay yiraahdeen yaa gacanta wax dambe lagu soo qaaday cid halkan joogtana yaa loogu qaadin wax kale meel kale ka yimaadana lagu soo qaadin ya laana dhibaatadeeda ayaa badan karta qof lacag sida dhibaato sameyn kara ya marka taasina waa taa weeyaan arinta kale ee la soo qaaday waxa kamid ah lacagta mashaariicda ee World Bank u nasiyo يعني lacagtii World Bank ayaa wax ka dhiman yihiin hadii la maqlo soo World Bank waa dadka sare wala ma kaceen wallahi cudul basra wala kicila leena maalul balkan bay joogan shalay halkan aan ku shiray qolada World Bank lacagtii World Bank wax laga tagay inuu keeno soo saaro iyo soo saari waayaan waa waxaan dhacayn weey hadaba aan idin sheego halka taasi marayso aan idin sheego World Bank mashaariic fara badan weeye waxaan markaa idin tusayaa arinta World Bank halka ay marayso ayaan idin tusayaa soo tamay taasaan idin tusayaa inaad dad capture gareyn kartaan waxa weeyaan lacagta anaga account kayaga soo gashay iyo halkay ka soo baxday inta ku qoran iyo auditor generalku inta uu yiri waa way taala way kala badan yihiin taayada ka badan eeg columnkaas kaasi waxa weeyaan intaan anagu hayna weeyaan ya waxa weeyaan 49 milyan iyo gogo ya halkana waa ta ku jirta central muxuu haynaan banka World Bank banka adduunka waa exactly the same amount leena miya wixii ku soo galay wixii halka ka soo baxay ma noqonayaan maanta wixii ku soo way noqonay waa isku mid baan annaguna waa ka iyaguna waa kuwa figure kan kale ka sii yar waa ta ku taala report kan auditor general way ka sii yar tahay marka wuxuu leeyahay lacagta la idin soo diray taadaysaan baa ka badan xagee inta badan xagee ka timi the figures ka dadna weydiin lahayd baan leeyahay waa ku sheegi lahayd waa kuwa labada figure midna waa taa taasi oo World Bank 49 million tano anaga 41 million auditor general ko 43 million 5 million baa u dhaxeeyay ya dacidii ka jawaabaysa ayaa ka jawaabi doonta now arinta kale ee aan doonayo inaan ka hadlo waxa weeye auditor generalku muxuu haynaan hanti dhowrka guud wuxuu oo baaray meelo kale wasaaradda ka baxsan oo civil aviation committee oo wasaaradda gaadiidku ka mid tahay oo CID du ka mid tahay wuxuu soo saaray markaa in lacago beriga ay qabteen lacageena iyagu dib u isticmaaleen oo aanay wasaaradda ku soo wareejin ya marka taa anu kaliya waxaan ka oran karaa taa
beriga weliba bilowgii sanadkiina dhaafay wasaarada fara badan iyo wakaalada fara badan baa sidaas oo kale ah iyaga qaban jiray annaga capacity iyaga iska yaraa ya wasaaradda iyo de waa la soo kacayo qawaaniintii waxba la isku shuruucda la isku geynayay wasaaradaha aan sheegnay ma inta kale way qaban jireen education ka qaban jirtay wasaaradda health ka qaban jirtay wasaaradda foreign affairs ka qaban jirtay qolo waliba shaqada ay dadweynaha u qabato waxay ka qaadayada hayn jirtay dabeeta annaga bishu markay dhamaatay wax noo soo gudbin jireen way joogsatay arrintaasi ya arrintaasi way joogsatay waxaana cabinetka soo saaray golaha wasiiradu in wax alla waxa la qaadaya cid alla cidda la qaadaysa wasaaradda maaliyaddu qaado central bankana la geeyo ayaa la soo saaray ya sidaa daraadeed de mooyaan sida iyaga haddii lasii baadhay haddaan lasii baadhay laakiin way jiri jirtay arrintaasi arrin jirta waa saxna ma lihi waa khaladna ma lihi laakiin waxay ahayd arrin jirta ya marka arrin jirta oo berigaa sidaa ahayd ya ayay ahayd laakiin arrintaasi arrin soo dhamaatay bay noqotay meelo badan oo wax qaadi jiray imika annaga ayaa nagu soo wareegtay waxaa markaa aan kusoo gabagabeynayaa reportkii aragnay akrinay waxaa nala gudboonay waa inaan jawaab ka keenno umayta jawaabtina waa taas haddii ilaahay yidhaahdo intaan waagu beriyin waan saxiixi doonaa oo warqadaa weeye saxiixi doonaa iyada oo inta aan idiin sheegay oo aan xanaf iyo waxba toono lahayn dee in wax la isla saxa weeyaan hantiga dhowraha waa soo dhaweynaynaa staafkiisa waa soo dhaweynaynaa hay-adda waa soo dhaweynaynaa runtii waa soo dhaweynaynaa dalkan inuu adduunyada la falgalo ayaan rabnaa waxba in la qariya ma rabno waxaase loo baahan yahay inaan meesha macluumaad ku jira laga doono waxyaalo badan oo xuquuqda eeg inagu uguma horeyno dad la audit garayo uguma horeyno qaanuunaa jira international oo adduunka xukuma ya marka lagu audit garaynayo usluub baa jirta la isku audit garayo usluubtaas waxay odhanaysaa in dadka wax la weydiiyo madaxda wax la weydiiyo cid technicalka la weydiiyo hadhow markaa waxaad soo saartana internet shaacinana dibadda geynin ya in laga tashado lianna khalad baaba dadku samayn karaan maanta khalad caadi oo aan looguma talagelin baabay samayn karaan waxbaa la isla saxaa ya hadduu auditor generalku ku qanci waayo waxa hay-addu leedahay dadka la audit gareeya leeyihiin sidiisuu iskaga soconi laakiin qofkaasi ra'yigiisa aniga ra'yigayga inuu lagu lifaaqay tahay anigu waxaan ya auditku saasoo kale weeyaan haddana diyaar baan u nahay wixii auditee kale socon doona haddii la idhaah anigu halkaasaan kusoo gabagabeynayaa waxaan filayaa inaan ka jawaabay su-aalihii waaweynaa ee dadka soomaaliyeed hayeen inaan ka jawaabay ayaan filayaa waxaan ku gabagabeynaya waxa weeye lacag halkaa wasaaraddaa soo gasho oo meel kala maraysa ma jirto mana jiri karto ya lacag wasaaraddaa soo gasha dheeraad nin doono dhaqankii xumaaye adoo dhiilka heensaday ama haanta dhabaqsaday dhagdhag iyo haddii sacab lagu soo dhaweyn jiray dhaar baa ka taaloo dhici dooni mayso ana teelahay dhigan ya intaasaan kusoo gabagabeynaya lacagta halkan taala dadka soomaaliyeed baale ummadda soomaaliyeed kabahla baale ee halkaa taagin ya marka qofka wax ka doondoonayo wala inaad heli doonin ya haddaad soo heshana waa kula karbaashayna ciddii waxaa samaysa wallahi waa kula karbaashayna laakiin indhahaan ku haynaa indhaha iyagaa furan adimadeedaa furan oo gacantayadaa furan ya oo waxa weeye lacagta halkaa timaada dadkii lahaana waa daba joogaan soo maaha dadkii lahaana waa daba joogaan annaguna waan daba joognaa ummadda soomaaliyeedna way daba joogtaa haddii qof waxdaa jira annagaaba qaawinba horta intaan wax kalaba iman annagaa qaawini marka halkaasaan kusoo